سؤال صدحات وأتكهذا الشيء كيس كعائشة وأدوكتها محكمة نوع عاس تاريخ ذا الصومالي أنت اللي حسوست كيس كعائشة وكلامه وكذا عاد مجري ده المحكمة ده فرن بالشدة كقيب قشي ميديا هلا جسي داي عدول بيجي أركيسي صدح دي بروسيجر أي مشتي محكمة دي كواد حكمتي رعفان كي وحكومي محكمة دي سرقوا عن قاعدتي لقوا حان ددوينها إيو ميديا برايا habka dawladnimadu u shaqeyso waxyaabaha maxkamadaha go'aan gaaristooda dawladda Puntland madaxweynaheedu ma leh waa dadaan marmar waxay yiraahdaan xeerka fulinta madaxweynaha saxiix waa saxaya sax ma ah maxkamadaha madaniga ah go'aanada ay qaadaan maxkamadda sare iska leh marka iyadaan u deenaynaa xukuumaddana ma la rabo inay fara gashato waxaan rajaynayaa ciqaabtu xukunka markuu dhaco iyo markuu fulaayo iyadaa taqaan procedure la maraajira wax hadda ka khaldan oo aan garanayna ma jirto sida ay u soo socotay haddana u socotaa wadadii cadaaladda ku socotaa waan rajaynaynaa wadada cadaaladda inay wadadeeda ku socoto haddii khalad ay cadaaladda ka timaado markaas ayaa wixii ila gudboon madaxweyne ahaan aan arki doonaa سؤال كويديني واحد قرشن نوعية يتكوها ليسا لابد كني لباتن كحكومة دادو هجامية وتقي. مركب جوه الرئيس وعن روانا عن فرصة أنو جفاء ليسو عن تعسيه هل كانوا قدروا نن أمد الصومال الغالك وأحمد كيسة ودوان جيريودي وحن إلهي وبري إنه نحريستي الجنسي هلديسي غرابدين يا أصحابتي سمري إيمان مكسيو هليي دي midnimada Soomaaliyeed ka soo shaqeysay ayuu ka mid ahaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa u tacsiinay inta markaan ka gudbo dabcan dawladda qorshe guud oo ku salaysan 8 yool iyo 66 hawl shaqo ayay u soo bandhigtay bulshada reer Puntland in ay rabto in ay wax uga qabato muddada 5 sano ah ee xilka hayso qorshahaas bisha 2019 bishii saddexaad ayaa si qorshe dawladeeda loo rogay sanadkii la soo dhaafay sidaas ku shaqeynaysay sanadka 2020 ilaa iyo xilka intuu ka dhamaanay taas ku shaqeynaysa laakiin waxay u kala jajaban tahay qorshe hawleedyo u kala qaybsami doona si isku dhaf ah sanad walba inta ka qabsoomi doonto saldhigiisana uu yahay in la tayeeyo dhammaan hay'adaha dawladda ee muddada 22 sano jiray dhinac walba laga tayeeyo intii laga gaari karo hadda sanadkaas sidoo kalena la tiigsado qorshayaasha saldhigga u ahaa aasaaskii Puntland ee aan weli la gaarin oo ugu muhiimsan tahay sidii midnimada Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka ay cagaheeda ugu istaagi lahayd dalkuna midnimadiisa looga shaqeyn lahaa sidoo kalena Puntland in la geliyo nidaamka dimuqraadiyadda ee qof iyo cod intaas ayaa sanadkan waxyaabaha ugu weyn oo lagu tuntunsanayo ayay saldhig u yihiin laakiin qorshe hawleedyadaas waxay isugu jiraan dhammaan afarta qaybood ee xukuumadda la isugu qaybiyey ee dhinaca maaliyadda iyo dhaqaalaha horumarinta dhaqaalaha dhinaca adeegyada iyo kaabayaasha dhinaca amniga iyo dimuqraadiyadda iyo arrimaha ku saabsan iyo qaybta kaleeto oo ku saabsanayd horumarinta arrimaha bulshada sidii wax loo qaado marka qorshayaashaas way qoran yihiin sanadkanna waxaan rajaynaynaa sidii sanadkii 2019 qorshihii sanadkaas uu u wada hirgalay 86% ayaan rajaynaynaa sanadka 20kana qorshayaasha dhigan inay noqdaan in sanadii wada dhameystirmaan iyo intii kale oo laga gaaray way sanadkii 2019 سؤال كوباد أركتي الدنيا كوجاga oo studio iyo 66 waxqabad ku xusnaa waxaad aad ugu cadaysay bariyada hadalku inay sugnaan doonto dastuurka Puntland qodobkiisa 14 uu ku sugay bariyada fikirka qof inta xukuumadda jirtay waliba toddobaadkan odayaal inta aan ognahay hadlay oo fikirkooda saxaafadda ku soo bandhigayaan maxaa sabab qodobka labaad ee su'aashiida wasraacsanaya waxa weeye waxaad ka hadashay khudbadaadii caawa musuq maasuqa
in musuqmaasuq dhacay baad gartay baarlamaankuna bishii toddobaad ee sanadkan sanadkii aynu soo dhaafnay waxay sheegeen in musuqmaasuq jiro dadkii musuqmaasuqaasi geystay waxaad sheegtay cafallah ducama salaf baa tiri wixii hore dembiile aan la ciqaabin oo dembigiisa hore lagu ciqaabay sidee berito uga baaqsan kara inuu dembiga ku laabto ugu dambayntii kiiskii Caasha Ilyas raggii falkaa geystay ilaa hadda laguma fulin xukunkii muxuu fuliyay xukunkaas su-aasha koowaad ku saabsan waxaa sheegtay dastuurku siduu dhigaayo waa xorriyadda fikirka laakiin dhaleecaynta iyo been abuurka fikir ma aha waa faldambiyeed dadka aan u diraayo halka fariimaha xataa waxaa ka mid ah daljir oo mararka qaarkood baahiso warar been abuura oo xaqiiqo ah ay ka mid tahay waddada ceel daahir masawirro meel yar intaad ka soo qaadeen kiliib ka weynayseen ka dhigteen inay waddadii burburto shacabkuna maalin walba way muraan dadkuna way la socdaan marka been abuurka iyo beenta iyo dacaayaddu ma aha fikriyad xor ah tan dastuurka uu damaano qaadaya taas maaha faldambiyeedku waxaa u xil saaran hay-adaha laamaha amniga iyo garsoorka marka qof dowladdu ay xirtay si toosa ma jiro laakiin laamaha amniga iyo garsoorka maxkamadaa la mariyaa xeer ilaalin dacwadaa lagu soo ogaa dad intii dadka xorriyadda laga qaado la iska jeelasha la gelin jira ma aha waa nidaam dimuqraadiya qofkii xadgudbana haddee xabsiyada iyo maxkamadaha iyo waxaa loo samaystay dadka xadgudba in lagu qabto marka waan u rajaynayaa dhallinyaradu inay kala barato xorriyadda fikirka iyo propagandada iyo dacaayadda iyo been abuurka inay kala bartaan haddii kale dee ciqaabtaasay mutaysan doonaan taas intaas aan uga baxaya su-aasha labaad aad ka hadashay musuq maasuqa dabcan waxaad og tahay xukuumaddan xukuumaddii ugu horreysay oo fal musuq maasuq maaliyadeed xukuntay intii puntland jirtay taariikhdaas waa haysaa umaynaa journalistaata annaga ma dhihin dadka hadda jooga galaya ma aha laakiin puntland muddo dheer ayaa nidaam habacsan oo traditional ah oo haddii si loo fiiriyo musuq maasuqa laakiin dadka caadaysteen baa jiri jiray marka waxaan ka hadlaya waxa weeye wixii hore oo la jiri jiray annagu 20 sano dadkii sidii nidaamkii duruufuhu keeneen baa xukumayna oran mayno waxaan leenahay cafallahu camaa salaf waa waxa hore laakiin hadda waa dawlad xisaabtamaysa ciddii xadgudubtana xadkeeda lagu qaadi doono waxa uu sharciga ka qabo ma aha xukuumaddu waxay ka qabto sharcigu wuxuu ka qabo